asalaamu calaykum duhur wanaagsan. halkani waa idaacadda Afrika magaalada Muqdisho. kusoo dhawaada qodobadeena wararkeena duhurkooda ugu waaweyn aad ku maqli doontaan dhageystayaal. waxaa ka mid noqonaya maleeshiyad hubeysan oo gubay guriga ku yaala tuulooyin hoostaga degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. ciidamada danab oo howlgallo qorsheysan ka fuliyay gobolka Shabeellada Hoose. al-shabaab oo weerar ku qaaday gobolka Lamu ee dalkaasi Kenya. gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb oo booqday dhisma ka socda wadooyinka magaaladaasi. taliska booliska oo taliyaal cusub u magacaabay Dhuusamareeb iyo weliba Matabaan ee gobolka Hiiraan. Sacuudiga oo muwaadiniinteeda ka mamnuucday in ay u socdaalaan gudaha dalka Soomaaliya. qodobada dibadda wararkeena duhur aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya Qatar oo si kulul uga hadashay weerarka ka socda Gaza iyo duqeymo mar kale saaka ka dhacay marinka Gaza ee dalkaasi Falastiin. baraanka ku taagan yahay awow aamus waxaan dhageysanayaa war ka baxaya Radio Afrika. idaacadda Afrika kula dhageysta ka fur adeer albaabka ha dhageysta warka idaacadda. adeer kale idaacadda la dhageysta. intaas dhageystayaal aad maqlayseen waxay hayeen qodobadeennii ugu waaweynaa. haatana dhageystayaal kusoo dhawaada iyagii oo faahfaahsan. xarakada al-shabaab ayaa la sheegay in weerar ay ku qaadeen fariisimo ciidamada Kenya ay ku leeyihiin gobolka Lamu ee dalkaasi Kenya. xubno ka mid ah xarakada al-shabaab ayaa waxaa la sheegay in weerar ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda Kenya ay ku leeyihiin deegaanaha hoostaga gobolka Lamu ee dalkaasi Kenya, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada al-shabaab iyo kuwa dalka Kenya. saldhigga ciidamada Kenya ay ku sugan yihiin ee la weeraray ayaa waxa uu ku yaalaa deegaanka Maygaay oo ka mid ah gobolka Lamu, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday in ka badan laba saacadood kaasi oo dhexmaray ciidamada Kenya iyo xubno ka mid ah xarakada al-shabaab. dadka ku nool aagga deegaanka Maygaay oo ka mid ah gobolka Lamu ayaa waxaa la sheegayaa in ay saameyn xoogan uu ku yeeshay dagaalka, iyadoo mararka qaar xaafadaha deegaankaasi ay ka dhacayaan rasaas la isku adeegsanayo. taliska ciidanka Kenya ee gobolka Lamu weli wax faahfaahin ay kama aysan bixin khasaaraha ka dhashay dagaalka dhexmaray ciidamada Kenya iyo al-shabaab, marka laga reebo saameyn uu ku yeeshay bulshada ku nool deegaanka Maygaal oo ka mid ah gobolka Lamu ee dalkaasi Kenya. weerarkan dhacay deegaanka Maygaay oo ka mid ah gobolka Lamu ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli habeen ka hor xubno ka mid ah xarakada al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada Kenya ay ku leeyihiin gobolka Wajeer ee dalkaasi Kenya. taliska ciidanka danab ee dowladda Soomaaliya ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose. ciidamada kumaandooska xoogga dalka Soomaaliya ee danab ayaa saacadii la soo dhaafay waxay howlgallo qorsheysan ka fuliyeen deegaano ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose, halkaasi oo la sheegay inay ku sugan yihiin xubno ka mid ah xarakada al-shabaab. howlgalkan oo saraakiisha hogaaminaysa ay sheegeen in uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayo ayaa ciidamada danab waxa ay ka sameeyeen deegaanka Yaaq Barweyne ee gobolka Shabeellada Hoose. ciidamada ayaa howlgalkooda waxa ay ku galeen guryaha iyagoo baaritaan ku sameynayay, waxaana saraakiil ka tirsan ciidanka danab ee warbaahinta dowladda u sheegeen in howlgalkan uu ka dambeeyay kadib markii deegaankaasi lagu arkay xubno ka mid ah xarakada al-shabaab. saraakiisha ma aysan sheegin waxyaabaha lagu soo qabtay howlgalka, hase yeeshee waxa ay sheegeen in uu sii socon doono howlgallada ilaa deegaanka Yaaq Barweyne iyo weliba deegaanada ku dhow laga saarayo xubnaha ka mid ah xarakada al-shabaab. allah u naxariistee maanta waxaa magaalada Muqdisho lagu aasay wariye Axmed Xuseen Cadow. allah u naxariistee waxaa maanta qabuuraha iskuul Buluusiya ee magaalada Muqdisho lagu aasay wariye Axmed Xuseen Cadow oo ka mid ah warbaahinta dalsan, kaasi oo xalay ku geeriyooday isbitaalka Yardameedi ee magaalada Muqdisho. Axmed Xuseen Cadow ayaa muddo 7 ah la jiifay isbitaalka xanuun ka haya dhinaca wadnaha, kaasi oo ugu dambeyn u geeriyooday xalay xilli dambe, waxaana ehelkiisa ay sheegeen in ay dhibayso in uu neefsado. aaska wariye Axmed Xuseen Cadow ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah eheladiisa, saaxiibadiisa, qaar ka mid ah ama inta badan wariyaasha magaalada Muqdisho oo ay ku jiraan kuwa ay isla soo shaqeeyeen iyo maamulka sare ee warbaahinta dalsan uu ka howlgali jiray. gudoomiyaha guud ee warbaahinta dalsan
ayaa sidoo kale sheegay in ay uga tacsiyeynayaan ehelkiisa waxaana uu ballan qaaday in mushaarkii uu qaadan jiray uu sii qaadan doono. qaar ka mid a wariyaashiis la soo shaqeeyeen warbaahinada kala duwan ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa dhammaantood uga tacsiyey ehelka iyo weliba asxaabtii qoyskii uu ka geeriyooday. allah u naxariistay wariye axmed xuseen cadow ayaa inta la xaqiijiyey waxa uu ifka kaga tegay hal xaas oo uur leh iyo weliba 3 caruur ah, waxaana in muddo ah uu ku jiray bahda saxaafadda isagoo ka soo shaqeeyay dhowr idaacadood oo ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya. taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa saldhigyada ama taliyaal cusub u magacaabay saldhigyada booliska Dhuusamareeb iyo weliba deegaan ka mid ah gobolka Hiiraan. taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa taliye cusub waxa uu u magacaabay saldhigga booliska magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug iyo saldhigga booliska degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa xilka taliyaha booliska magaalada Dhuusamareeb loogu magacaabay gaashaanle Maxamed Xasan Warsame, halka taliyaha saldhigga booliska degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan loo magacaabay Dhamme Nuur Cilmi Maxamed. sidoo kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa taliye ku-xigeenka qaybta guud ee booliska gobolka Mudug waxa uu magacaabay gaashaanle Maxamed Mere Maxamuud, kaasi oo hore u ahaa taliyaha booliska magaalada Dhuusamareeb. ugu dambeyn taliyaha booliska ayaa amray taliyayaasha qaybta guud ee booliska gobolka Mudug ee maamulka Galmudug in uu howlgaliyo saraakiisha la magacaabay isla markaana uu u dalbo xuquuqda ay leeyihiin. dhanka kale gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmudug ayaa maanta waxa uu kormeeray dhismo ka socda wadooyinka magaalada Dhuusamareeb oo isxilqaan u dhisanayaan ama dhalinyarada ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulkaasi. gudoomiyaha ayaa deeq lacageed u ballan qaaday dhismaha wadadaasi isagoo sheegay in tallaabo wanaagsan ay tahay ay bulshada ku dhaqaaqeen. macallin Cabdiraxmaan Gedo Qorow ayaa sidoo kale waxa uu hambalyeeyay dhalinyarada maadaama ay shaqo buuxda u hayaan bulshada ku dhaqan halkaasi. wada kasta waxaan ugu talagalnay marka hadii Ilaahay yiraahdo inaan hadda macnaha ku tadawucno annagu aan ka harayno shaqadan waa shaqadii maamulka caasimada oo ilahay inta aan maanta sheegayno oo harmayna haddana waa soo noqonaynaa mid kastana waa kormeeraynaa. hadda waxaan rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo inaan halkaan xaafadaha oo dhan saddexdaas wado waxa ugu talagalnay 120 lowr 120 lowr 40 lowr hodanaan hadda kor u soo sheegnay adinkana 40 lowraan idin dhiibaynaa 20 arakaawa iyo 20 dhagax hadii Ilaahay yiraahdo kuwaas kalena ayana 40 aan u geynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo marka 120 kaas lowraan hadda macnaan rabnaa inaan maanta balorta wadooyinka aan ku tadawucno. waxaan rabaa inaan u yeero dadka ganacsatada ah oo xaafadda degan magaalada musaabaqi galaysa magaaladu waxay u qaybsami doontaa degmooyin hadii Ilaahay yiraahdo waxa la keenayaa laamiyaal maashi qoladii marka wada toosan oo laami la saari kara oo arakaawaysan haysata ayaga anagu waxaan siinaynaa hadii Ilaahay priority kooda siiyo laamiga koobaad soo bax ayaga in la siiyo. hadalka taliyaha ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ee bulshada ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee magaalada Dhuusamareeb ay wadeen howlgallo lagu dhisayo wadooyinka magaaladaasi iyadoo gudoomiyahana uu ballanqaad u sameeyay dhalinta ku dhaqan halkaasi. magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaa haatan kulan uga soconaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo labaduba ahaa madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya. madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ay welinayaan xildhibaan Faarax Sheekh Cabduqaadir iyo xildhibaan Maxamed Abuukar Islow ayaa kulan waxa uu ka soconaya hoyga Muqdisho uu ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah gudoomiyaha midowga musharaxiinta. kulanka ayaa waxaa looga hadlayaa xaaladii ugu dambeysay ee siyaasadda dalka iyo arrimaha doorashooyinka oo dhawaan la filayo in madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay shirka yeeshaan. kulanka ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in mas'uuliyiinta uu uga hadlayo sidii ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble looga shaqeyn lahaa sidii uu u dardargelin lahaa howlaha doorashooyinka ee loo xilsaaray. xubnaha midowga musharaxiinta madaxtinimada ayaa kol hore sheegay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble in loo baahan yahay inuu qaato mas'uuliyadda arrimaha doorashooyinka ee lagu wareejiyay isla markaana sida ay tahay uga soo baxo mas'uuliyaddaasi.
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan dhegeystayaal waa idaacadda Afrika magaalada Muqdisho. iminkana qodobada dibadda. ciidamada Yuhuudda ayaa mar kale waxa ay duqeeyeen magaalada Gaza ee dalkaasi Falastiin, iyadoo saakay mar kale ay duqeymo u geysteen halkaasi. dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin ayaa galay toddobaadkii labaad xilli xaaladda ay ka sii darayso. diyaaradaha Israa'iil ayaa xalay duqeyn culus ka geystay Gaza. militariga Israa'iil waxa ay sheegeen inay beegsadeen saldhig ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Falastiiniyiinta, balse wariyaasha ayaa ku soo waramaya in guryo iyo wadooyin iyo weliba xargihii korontada ay burburiyeen dhammaan gantaalada ay Israa'iil ku reejisay Gaza. dhanka kale Xamaas ayaa weli sii wada gantaalada ay ku garaacayso koonfurta Israa'iil. saraakiisha ku sugan marinka Gaza ayaa sheegaya in 200 oo qofood oo Falastiiniya lagu dilay dagaalka, kuwa badankooduna sidoo kale kuwaas badankooduna ay yihiin Israa'iiliyiin, halka Israa'iil ay dagaalada kaga dhinteen sida ay sheegeen 10 qofood. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa shalay sheegay in xukuumaddiisa ay sii xoojin doonto uga jawaabidda gantaalada Xamaas tan iyo inta amniga dib loogu soo celinayo. guud ahaan warkii oo aad ka dhageysanayseen idaacadda Afrika magaalada Muqdisho. saaxiibayaal wanageynta idina waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warkayaga.